السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلطان إبراهيم عاوي الله سود هذا مر لبعض عاو حربا إنا كهالله ودلهيرها أصحاب ترمان ميل كستود جوكتان سود هذا و وإن سود وين يا كدبنا إن شاء الله تعالى وطلاب غادا إنا هالك أنا صعدنا وحاويو إنا كهالله عربه caawa waxaan inaan ka hadla rabaa soo dhawow Shucayb waa ka qabtay masaajidka ku yaala Irsa oo walaalahaas tabarucaad ay raadinayaan in soo qabteen ayaa rabaa in maaragtay aan ka hadalno caawa masaajidkaas waxaa ku yaala qabalaha Darso degmada Dolow muslimiinta meel kasta joogaan codkayga dhegeystaan masaajidka sidaan kusoo qoray nambaraan meesha kusoo qornay waad arkayseen tabarucaada in la gaarsiiyo wax loo aruuriyo walaalahaas muslimiinta ah oo na soo cawday waana la soo daanay waqtiga ciidda maalinta ciidda ay soo geliyeen laakiin sida awgeed qadka xumaa daraadeed waa usoo bixi waayey videoga goobta ay joogeen marka walaalaha waxaan u sheegayaa dhammaan reer Nairobi, reer London, reer maarta America, reer Muqdisho, reer maxaan ku dhahay Ethiopia, Jigjigo, Addis Ababa, walaalaha gobolka garanaya afdheer gaar ahaan qabalaha Darso waxaan ka codsanayaa in maartay walaalaheen ay ka qayb galaan oo maartay walaalaheen ay caawiyaan masaajidkaas waxa waay Baytullah إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مركا ولا لي المساجد كواشي في عن إلا دسو وشيء غير بدن وشيء وناقصن وحن كعصنيا ولا لها مارتي مساجد كإن لا دسو أو مارتي مساجد كاس مارتي وقيمها بدن لا دسو ولا لها وحن كعصنيا أو كلا إن مارتي masaajidka la dhiso masaajidkaas la soo dhiso masaajidka walaalayaal masaajidka hala dhiso sida ugu dhaqsiyaha badan marka walaalayaalow hala caawi walaalahaas lacag yar wallaahi maanta haddii loo helo lacag wadankan 500 waliba asagoo dhala ah oo wada muraayadan in soo sawaraya 500 kun horta aan aruurino nin kastana tabarucaad ha ku diro lambarkaas wuxuu leeyahay maartay waa M-Pesa camal ama EFT malaha maartay Ethiopian network weeye walaalayaal fadlan hal caawi walaalahaas masaajidkan cabashada soo dhiibtay kulay waad arkaysan Facebook waa soo geliyay qoraal asagoo ah ayadoo lambarada ay ku qoran yihiin ayadoo maartay codadkeedii ah ayagoo maartay ka hadlaya masaajidka xaaladiisa iyo meesha inta sano dhisnaa iyo sidoo yahay waad arkaysaan dhista geedka qareerowga masaajidka la dhisin marka la dhisay kadib la talaalay intaad leeg waad arkaysaan walaalaha waxaan ka codsanaynaa in masaajidkaas ay maartay dhisaan oo gacan ka qayb qaataan si ugu dhaqsiyaha badan walaalayaal ilaahay waxa siiri inta la dhisay masaajida ugu wanaagsan xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam kam wuxuu yiri masaajid ninka dhiso asagana gurigan jannada ugu dhisaya marka walaalayaal masaajidka hala dhiso ha laga qayb qaato sida ugu dhaqsiyaha badan maartay masaajidka iyadoo cudurro xun ay jiraan inaad ilaahay cudurrada naga dul qaado faataxada nagu soo kaalmeeyo noo soo duceeyo maartay annagana waa in duceynaynaa walaalaha muslimiinta meel kasta joogaan dunida waa amaanaya waxaan ku amaanayaa walaalaha khayrka jecel maartay ka qayb qaata maalin kasta sidii maartay loo dadka walaalaha iyo masaajidada loo caawin lahaa dadka walaalaha masaakiinta loo caawin lahaa ما شاء الله Soomaalida aad bay isu caawiyaan muslimiinta kalena waa is caawiyaan marka walaalayaal inta luqadayda ku hadasho oo afka Soomaaliga garanaysa waxaan ka codsanaynaa in ay masaajidkaas tabaruca maartay ka soo qayb galaan